بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن أخيارتنا داوانيساي meel kasta oo aad dunida ka joogtaanba kuna soo dhawaada warkii caalamka ee Darwish TV oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi qodobada aad ku daawan doontaana waxaa kamid ah waxgaradka deegaanka kala bayr ee gobolka Sool oo Soomaaliland ku eedeeyay in ay isku dirayaan shacab weynaha wadadaga degmada Laascaanood dadka qurba joogta ah ee ka soo jeeda degmada Yagoorina waxa ay halkaasi ka hirgelinayaan isbitaal casri ah wararka dibaddana waxa ugu waaweyn Sacuudiga oo ka gaabinaya ka falcelinta caalamka islaamka uu kaga falcelinayo aflagaadadii dalka Faransiiska loogu geystay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatay intaas waa qodobadii warka qaarkood u diyaar garow mardhow warkii oo dhan markale kula wanaagsan akhyaartana daawanaysay ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxaana idin waramaya aniga magacaygu yahay Axmed Cabdiraxmaan uqaasha iyo waxgaradka deegaanka kala bayr ee gobolka Sool ayaa maamulka Soomaaliland waxa ay ku eedeynayaan inay isku dirayaan shacbiga degmada Laascaanood warbixin arintaasi ku saabsan waxa halkaasi ka soo diray wariyaha Darwish TV Maxamed Shaqale uqaasha odayaasha iyo waxgaradka deegaanka kala bayr ee gobolka Sool ayaa ka warbixiyay dhacdadii ka dhacday inta u dhaxaysa kala bayr iyo Karin ee keentay dhimashada labada qof iyaga oo sheegay in qorshuhu ahaa isku dirka beelaha walaalaha ah ee reer kala bayr iyo Buuhoodle oo ay ka shaqeynaysay maamulka Soomaaliland odayaasha ayaa sheegay in dhacdada kadib ay u tageen maamulka Soomaaliland oo ay ka codsadeen in lagu wareejiyo labada meydka ah sayashee loo diiday isla markaana aysan jirin rag ay xireen oo jeelka lagala soo baxay iyo tacsida aanu diranay waxaan leenahay dadka dhintay dhammaan ummadda reer SSC way ka wada dhinteen Ilaahay ha u naxariisto ehelkii iyo qoyskiina samir iyo iimaan Ilaahay ha ka siiyo inta haddaan ka gudbo guriga gobolka waa tagnay laba arrin baanu la tagnay labada arrin waxay ahayd ee guddiga nabadgelyada aanu la tagnay guddiga nabadgelyada oo isku dhan laba arrin baanu la tagnay in meydkana nala siiyo aanu aasno nimankaana sharciga la keeno nimankaasi meydkiina waa noo diideen nimankii sharciga ahayd in la xidhana waa diideen inay xidhaan marka waxay isku dareen meydkii oo dibadda yaala iyo nimankii dadka laayay oo bannaanka maraya marka macnaheedu waxay u dhigan tahay dadkaasi inay isku dareeraan meydkiina si cad bay noogu diideen waxay yiraahdeen annaga hawshaasi noo taala idinka idima taalo dadkii laayayna suuqay ku soo daayeen arintaas dadka islaamka iyo dadkii Laascaanood joogay intuba waa ogaayeen meydkaasi 3 cisho dibadda yaalay nimanka wax laayayna 3 cishay magaalada dhex marayeen hawsha odayaasha hore ay ka sheekeeyeen baanu meesha isugu nimi xariga la xiray taliye Faarax Haashin iyo wixii lagu xiray iyo sida ay ku timi odayaasha ay ka soo sheekeeyeen baan la qabaa runtii marka ugu horeysa dhacdada waanu ka tacsiyadeynaynaa cid kasta iyo ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo deegaanka Buuhoodle iyo qoysas ka dhigteen hawsha waanu uga tacsiyadeynaynaa waxaan leenahay dhamaanteena samir iimaan Ilaahay naga siiyo marxuuminta dhintan Ilaahay u naxariisto annagu hawsha markaanu ka wada hadalnay waxaan ku kala tagnay raggaana in la xidho gacan ku dhiglayaasha ee suuqa hadarka waxa ragoonaya waxa weeye hawshii kalena wixii annaga nooga beegtoona raggaas boolisku ay laayeen iyo qabaylkoodii inaan la xidhiidhno u tacsiyadeyno guddida nabadgelyaduna hawsha wixii ay lahayd ay qabsato raggiina soo xidhxidho nabadgelyadina ay wax ka qabato ciddii kale oo hawsha la socotana ay soo qabato baanano guddida nabadgelyada ka filinay hawshii waxaa dhacday in raggii suuqu sidiisii laba maalmood iyo laba habeen cid qabatay aan jirin oo makhaayadaha sida ay ugu wareegayeen sida ay dalxiis yihiin anoo markay halka marayso raggaas 3 nin baa ahaayeen nin kamida odayaasii iyo tolkiisii baa ka haystay magaalo xilliga la geeyeen labada nin oo kala soo haray maalintii saddexaad waxaa qabtay marka ay arkeen cid qabanayn oo raggooda la laayay waxa weeye xaaladdu ay farax ka bixi gaadhay ay hormarayaan waxaa qabtay ciidanka taliyii Faarax Haashin baa qabtay sida loo qabtay loo geeyay loo qabtayna waxa weeye labadii beelood inay ku wada hadlaan
oo ku heshiiyaan oo ay xaaladooda caadi ku soo noqoto oo aan xaaladdaa wax dambe laga dabageyn uga diraynaa baaq dadweynaha ku nool gobolka Sool iyo agagaarkiisa iyo magaalada Buuhoodle marka u horeysa say odayaashii horeba yiraahdeen waxaan u tacsiideynaa dadkii walaalaha aan ahayn ee ka soo jeeday gobolka Buuhoodle dhacday ee naxdinta leh aad iyo aad baan run ahaantii aan uga xumaanay 100% haddii Ilaahay ku idmaayo waa kugu dhimayo ka dhimay anakayna dhibtay arintaasi waxyeelo weyn bayna ahayd xaqiiqatan marka laga hadlayo mar labaad iyo saddexaad waa ka tacsiyeynaa waanu ka xunnahay waanu ka murugoonaynaa wixii awoodayda karaanka ayaga aan ka qaban karayna waxaan u diyaarsanaynaa inaanu ka qabanno hadeerna waan wada joognaa magaalada Saaxadheer baan wada joognaa taasi waa tacsida meyd baa magaalada laba habeen yaalay 48 saacadood baa meydkaasi magaalada Laascaanood talaagad ku jiray oo uu yaalay dadkii dhalayna ay ka murugoonayeen oo ay ka xumaayeen annaguna aanu ka xumayn kuwii dilayna ay suuqa marayeen ma waxaa la rabaa marka inaan isku dareerno laadano labadii qabiil ma sidaas laga shaqeynaya anagu waxaan rabnaa sidaas inaan sax ahayn arintii saxda ahaydna Faarax Haashin baa abaaray waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliland madaxweynaha dhammaan hay'adkeeda oo dhan in si degdeg ah Faarax Haashin loo sii daayo xorriyadiisina loo soo celiyo ninkaasi ummadda uu ku kala hagoogtay xaqiiqatan uu ku kala hagoogtay xaq raadinaha loo soo diro maqaaxidii laga qabtay gabadhii haysatay waa joogtaa dadkii maqaaxida fadhiyay way joogaan dadkii ma dhiman waxa weeyaan maqaaxiba nimanka laga qabtay station la weeraray ma jiro saldhigoo la weeraray ma jiro xabada rasaasoo la riday ma jirto nin gacan ku dhigla oo maqaaxi fadhiya ayaa la soo qabtay waxa weeyaan deyrkii ma kala gubin mudaharaadkan waa mudaharaad iyo tacsiis ku jira marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa dadkii walaalaha ahaa maxaan ku idhaahdaa gacanta khaldani ku dhacday reer Buuhoodle baanu u tacsiyeynaynaa haddaanu nahay beesha Maxamed Garaad tacsi aad iyo aad tiiraanyo u leh dad walaalaho isku mida isku dhiiga dhibka sheedaanku ka adeegay iyo wax magaratadu aad baanu uga xunnahay aad baanu uga tacsiyeynaynaa ilaahayna waxaanu ka baryanaa kuwii dhintayna ilaahay naxariistii janna inuu ka waraabiyo warbajoogta ka soo jeeda degmada Yagoori ayaa waxa ay sheegeen in ay si dhaqsale uga hirgelin doonaan halkaas cisbitaal casri ah waa kan mar kale Maxamed Shaqale oo arintaasi ka warbixinaya isbitaal caalami ah oo ay dhismaha maalgelinteedu ay bixinayso qurbajooga deegaanka gobolka Sool ayaa laga bilaabay degmada Yagoori ee gobolka Sool iyadoo kaalin weyn ay ka qaadanayaan odayaasha deegaanka bilowga dhismaha ayaa waxaa ka hadlay guddiga gacanta ku haysa iyo waliba shirkadda dhisaysa saaka waxaanu taaganahay isbitaalkii Yagoori dhismihiisii oo bilaabmay oo meel fiican maraya ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala ilaahayna soo gaadhsiiyey meeshan dadaal 5 bilood ah iyo adduun badan oo la soo ururiyey naaxiyadan oo degmada ugu weyn weeyaan marka kulleeyda hagarasho iyo wax badan baa iska jira laakiin saaka waa la soo kacay haddii la soo kacayna hayaanka in la wada insha Allah ilaahay ka rajeenayna kulleeyba waxaan leeyahay qof kasta oo human ah oo bini'aadan ah waxa la dhisay waa dhakhtarkuna waa dhiig joojiye waa badbaado bini'aadan marka xagga bini'aadanimada inaan u dhaqaaqno xagga ehelnimada u dhaqaaqno xagga islaamnimada u dhaqaaqno taas baa muhiim ah kan kulli hadda waa dhismihii meel kasta adduunka meel caalamka meel kasta weydiisanayna in arinta wax laga qabto deegaankana Yagoori beeshan ka soo jeedna ma degan waxa degan faqshini baa degan dhulbaahanta kala degan marka cid walba waxaan leenahay inaad ka qayb qaadato arrin anigoo ah gudoomiyaha shirkadda dhismaha ee Gurya Samo Maxamed Cabdilaahi Kadiye ahna injineerka shirkadda maantana ay tahay 27 aanu shirkadda aanu dhismihii ka bilownay magaalada Yagoori dhismahaas oo ah dhakhtar weyn oo laga dhisayo magaalada Yagoori ayna dhisayso jaaliyada u dhalatay magaalada إن شاء الله تعالى أنا سيدا أن ما أنت شغلة أوبلونا شغالين على ورقتنا يا شغلة أسعون ساتوسنا وسعون إن شاء الله تعالى آديات بدون ما هسنتهين ما دابا أنه يقول دقيق عسبتال كاودي
waxaanu codsanaynaa dee waad aragtaan wixii laydinka qaaday iyo hantidii laydinka qaaday ummadda muslimiinta laga soo qaaday insha allah waad aragtaan saakayinoo bilowday marka qof kastoo islaama waxaanu ka codsanaynaa inuu taageero hawsha maadaama aanu nahay guddigii cusbitaalka dhexe cusbitaalka iyo degmada Yogoori aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa injineerkii waday hawsha saaka bilaabay iyo howlwadeenkii jaamac ee hawsha waday mahad ilaahay baa leh waxaan u mahadnaqayaa cid walba oo juhdi ku bixisay kuna bixin doonta dhismaha isbitaalka Yogoori rag iyo dumar dal iyo dibad aad iyo aad ayaanu idin soo dhaweynaynaa waadna u jeedaan lacagtii aad la baxdeen in ayaan meel kala marina maanta bilow tahay oo la bilaabo dhismihii uu socdo khayr qab ha ugu bedele inaynu inaguna neefka adhiga xabadda sibirka iska rogada ciidda ama dhagaxa aynu keenno xooga kuuliga wastaadka aynu juhdi inaguna la nimaadno oo contributionka si xawliya uga qayb qaadano innaga ayaa isbitaalka leh innaga ayaa hadeer deegaanka ku nool innaga ayuu anfacayaa dadkaasi waa walaalaheen waa tolkeen wafdi culamaa udiin Soomaaliyeed ah oo ka qayb galaya maamuuska iyo xuska dhalashada Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay sida uu ku soo waramayo wariyaheena gobolka Baay Khalid Cabdi Ibrahim wafdigan culimada maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa horjoog u ahaa Sheekh Axmed Sheekh Awees oo kamid ah culimada Soomaaliyeed waxaana garoonka diyaaradaha Shaati Guduud ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo qaafka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo culimada magaalada Baydhabo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweyn balaaran kadib ugu horeyntii wasaaradda diinta iyo qaafka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka hadashay soo dhaweynta culimadan ana oo ka hadalow magaca wasaaradda diinta iyo qaafta ahna agaasimaha ama agaasimo waaxeedka arrimaha awqaafta iyo diinta iwehliyan dad madax ee fara badan reer Koonfur Galbeed ka tirsan agaasimiyaal la taliyaha madaxweynaha dhinaca diinta may bahadhawaayahayna culimaa u diin ankooyan in la wiinaya maalinta nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhalade waa maalin eed an qiimo badan in la wiinayna noo mudan culimadaas oo hogaamiyahaya al-akh Sheekh Ahmed Sheekh Awees Sheekh Muhidiin Sheekh Awees waliba farxadniga geeka intuuna hadhawaayna culimadaas hana ka dhawaayna magaalada Baydhabo oo geeka farxad eedin wiinganigata ka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta sidoo kale waliba farxadniga anoo ka hadla wasaaradda magaasha guud ahaan ay wakiilada geeka wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Shariif Saalax oo jeelada fada geeka intiisu niil rooga xafladun ama dhaweeyku oo eedkan suurad badan wasaaradda suubiyahayta soo ka maqnii safar meel raayso shaqo waliba san lana meel raayso magaalada Baydhabo ka dhawaada Sheekh Xasan Hilowle la taliyaha madaxweynaha dhinaca diinta iyo qaafka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu tilmaamay in uu ku faraxsan yahay wafdigan soo gaaray maanta magaalada Baydhabo mashaayikhtaana saadaat suufiya geeka u qayb galeen xabiibka khayru khalqillahi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inaha weynayeen jecel maxabiyo nin qabaan in noo qayb galaan ankooyan gobolka Baay hogaamiyaha sheekhana Sheekh Ahmed Sheekh Awees بن شيخ محدين شيخ ويس القادرية صاحب سجادات طريق القادرية إنه وهليو للجراء إن شاء الله شيخنا شيخ أحمد شيخ محمد شيخ عبد القادر شيخ أوياي إنه وفودس أو شيخ قامي وكوميدي ما ينسيب أنهلنا شيخ مشايخ تاني وحقوقي بقى الحفلة داس الحمد لله
hardhawaada qalbo furun qalbo wanaagsan ka dhawaadayalana Sheekh Axmed Sheekh Cabaas oo kamid ah culimada maanta soo gaartay magaalada Baydhabo qaar kamid ah dadkii la socday safarkiisa ayaa waxa ay ka mahadnaqeen sida quruxda badan ee loo soo dhaweeyay waa salaamantiin waana mahadsantiin dadkii madaxda gobolka koonfur galbeed agaasimaha guud la taliyaha madaxweynaha Xasan agaasimaha awqaafta ragga kale kulligood ashraafta waa salaamantiin salaanta islaamka idinku salaameynaa waan idin mahad celinaynaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseen magaaladii Baydhabo ahayd Baydhabo Jannay magaaladii la dhigi jiray way waana rajaynaynaa insha Allah inay sideedii maanta taariikhdeedii iyo socodkeenu wuxuu yahayba walaalahayga iga horeeyay ka hadlay farxadayna farxad la qiyaasi karo ma ahan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan Baydhabo cala salaama aan ku soo galno ay haddana nagu soo dhaweeyaan asharaaftii saadaadkii anagoona lagu wacay ziyaaradii ama xuskii xabiibkayni Maxamed calayhi salaatu wasalaam haddana dalka culimadiisii ayagoo haddana noo jooga soo dhaweynteynii iyo qaabilitaankeynii iyo makaanka sharafta leh ay nagu soo dhaweeyeen waa uga mahad celinaynaa maalinta birita ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo lagu qabto munaasabad lagu weynaynayo dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Khalid Cabdi Ibrahim telefishinka caalamiga Daraawish TV magaalada Baydhabo Jannay وهاك دعوة ضيال ولي واحد لصعطان وركي عالم كدرويش تي في أو إذا كإيمان يا مقالة نيروبي dalka Sacuudi Carabiya ayaa ka cagajiidaya kana gaabinaya in uu ka qayb qaato dadaalada falcelinta ee dalalka Islaamku ay uga jawaabayaan aflagaadadii dalka Faransiiska loogu geystay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa aatee dowladda Sacuudi Carabiya ayaa cambaaraysay sawir gacmeedyada lagu gafayo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa aatee hase yeeshee dowladda dalkaasi waxay ka gaabsatay in ay xoojiso baaqyada ka imanaya dowladaha Islaamka ah ee la doonayo in looga falceliyo sawirada lagu soo bandhigay dalka Faransiiska ee lagu aflagaadiyay nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa aatee sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sheegay in Sacuudigu cambaareynayo dhammaan ficilada argagixisada iyadoo ay u muuqato in la tixraacayo macallin lagu gowracay magaalada Paris kadib markii uu sawir gacmeed uu ku sheegay Nabi Maxamed uu ku soo bandhigay fasal uu baraka ahaa isagoo cuskanaya xurriyadda hadalka sarkaalku waxa uu intaas ku daray in ay lagama maarmaan tahay in xurriyadda hadalka iyo dhaqankuba ay tusaale u noqdaan xushmad dulqaad iyo nabad lagu diido ku dhaqanka ficilada nacaybka ah rabshadaha iyo xagjirnimada ka soo horjeeda wadajirka sawir gacmeedyada lagu matelayo Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa aatee ayaa waxa markii ugu horeysay sameeyay wargeys Faransiis ah kaas oo xafiisyadiisa ay sanadkii 2015 weerareen dabley islaamiyiin ah kuna dileen 12 qof wixii intaa ka dambeeyay gowraca macallinka ayaa lagu soo bandhigay Faransiiska iyada oo isaga taageero loogu muujinayay wixii intaa ka dambeeyay gowraca macallinka ayaa lagu soo bandhigay Faransiiska iyada oo loogu muujinayay taageero xoog badan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in la qaadaco laga hor yimaado gabi ahaanba badeecooyinka ka yimaada dalka Faransiiska halka baarlamaanka dalka Pakistan uu meel mariyay qaraar ku boorinaya dowladda inay u yeerto safiirkeeda Paris gudaha dalka Sacuudiga qaadacaada ka dhan ah badeecadaha Faransiiska ayaa aad looga hadlayay baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay hase yeeshee wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in isniintii la soo dhaafayba ay wax walba u muuqanayeen kuwa caadi ah oo adeegyada iyo ganacsigu ay u kala socdeen sidii hore warbixintaas ayaa ugu dambeysay guud ahaanba warkii caalamka ee Darwish TV oo idinkaga imaanayay magaalada Nairobi aniga oo Axmed Cirra ayaa idin waramayay dib intaanu mar kale u kulmayno hadii eeba idmo dhamaantayo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh